gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada dawooyinka Somaliland Muuse Xasan Xaaji Yuusuf oo maanta hor yimid gudida joogtada golaha guurtida isla markaana ay ugu yeereen sidii ay ugu xog wareysan lahaayeen waxa ay hay'adani qaranka u qabato ayaa waxa uu sheegay in ay gebi ahaanba joojiyeen dawooyinkii ka iman jiray magaalada Muqdisho iyadoona la keeni jiray Hargeysa sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu sheegay in madaarka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa ay ku qabteen container dawooyin dhacay ah isla markaana ay talaabooyin sharci ah ay ka qaadeen dadkii waday dawooyinkan ugu horeyntiiba waxa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gudida joogtada ee golaha guurtida Somaliland Xildhibaan Ismaaciil isagoona ka codsaday in uu gudoomiyaha uga warbixiyo waxa ay hay'adani qaranka u qabato hadaladoodiina waxa kamid ahaa mudane gudoomiye marka hore waad ku mahadsan tahay balantii iyo waqtigii aad maartay ku timi marlabaadka waxa ku yeelay gudida joogtada ah ee golaha guurtida oo shaqeeya inta u dhaxaysa labada ka fadhi si aad uga siiso xog wareysi hawsha aad hayso qaranka waxna ay kaaga weydiiyaan ku soo dhow gudoomiye gudida joogtada ah waan salaamay horta marka hore mar labaad aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan ku faraxsanahay inaan idinka soo qayb galo shirkan aan idinku yimaado anigoo warbixin ka bixinaya hay'adda dhowrista tayada iyo xaaladda ay ku sugan tahay wixii noo qabsoomay iyo ujeedooyinka ama qorshayaasha aanu soo wadna haddii ay ka dhigo dawo documentka aan sidanin dalka ma soo gasho waxaa jiri jirtay dawooyin badan oo Muqdisho ka iman jiray iyagoo oo guraan gura ama iyagoo aan wax documents haysan boqolkiiba 90 dawooyinkaasi way istaageen waliba madaarka ka soo gali jireen waxaan kula awood saarnay ilaalinta tayada muxuu ahaa alaabta dalka lagu sameeyo ama laga soo saaro waxaanu sameeynaa wax la yiraahdo inspection ama baadhis aan ku sameyno warshadaha ama industry-ga iyagoo si joogto ah oo qorshaysan iyadoo si random ah oo aanay warshaduhu ka warhaynin imaatinkayaga warshadaha markaanu tagayno ama aanu baadhano waxaanu leenahay standard ama heer lagu baaro oo checklist leh waxyaabahan eegno waxa kamid ah shaqaalaha nadaafadda meesha muxuu ahaa tayada raw materials ka alaabta isticmaalayaan waxaad ka warhaysaan inaanu dalka ka joojinay shirkado ama warshado aanu soo baadhnay oo wixii ay soo saarayeen ay noqdeen wax aan muxuu ahaa tayadoodu aad u hooseyso ama wax waxyeelaya caafimaadka ummadda waxa jira iyaguna oo markii ugu horeysay Somaliland soo galay container dhan oo dawooyin dhacay ah oo iyagana aanu madaarka ku qabanay oo nin ajnabi lahaa oo isagana aanu ka qaadnay talaabo ku haboon oo sharcigu noo ogol yahay